madaxa shirkadda diyuuradaha ethiopian airlines toweldo gebre maryam ayaa sheegay in weli ay baaqi yihiin su-aalo badan oo ku saabsan diyaaradda boon 737 max 8 oo aan jawaabo loo helin. gebre maryam ayaa ballan qaaday wada shaqayn buuxda oo hufan si loo ogaado waxa qaldamay. gebre maryam ayaa sheegay in shilka diyuuradeed ee shabaha kii diyaaradda line air ee waddanka indonesiya ay si dhaqsi ah u fariisiyeen dhammaan diyuuradaha nooca max 8 adduunka oo dhan laga fariisiyey, isagoo sheegay in taasi ay si buuxda u taageersan yihiin. laba diyuuradood oo etoobiya iyo indonesiya ay leeyihiin ayaa waxa ay ku dhaceen markii ay duuleen waxyar kadib, iyagoo markaasina halkaasi ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa, kuwaasoo u dhexaysay muddo 5 bilood gudaheed markii diyaaradahaasi ay dhaceen. inta la ogyahay waxaa kooxda ay wax ka wateen deegaankaasi ralle ahaada waxaa kooxdaasi ay ka wateen deegaankaasi markii ay tageen baabuur kuwa raaxada ah. dadka deegaanka ayaa cabsi xoogan ka muujiyey al-shabaab iyo weeraradooda joogtada noqday oo u muuqda inay si dardar leh ay u socdaan. sahre cabdi axmed ayaa khadka taleefonka waxay kula xiriirtay xildhibaan xasan maxamed xaaji ibraahim oo loo yaqaano xasan dheere oo horay gaarigiisa ay al-shabaab uga gubeen degmada balcad markii ay la wareegeen dhowr cisho ka hor. taas xalay iyo maanta waa maxaa ka dhacay? wallaahi magaaladay galeen, masaajidadii iyo meelo lamid ay ka qudqudbeeyeen, baabuur shacab uu leeyahayna waa qaateen. waa gartay. al-shabaab marka loo fiiriyo balcad, marka loo eego hadda xawaadley, tuulooyin badan oo hoos yimaada ee gobolka shabeellada dhexe, ma moodaa in dardar iyo xoog ay soo yeelanayaan sida hore si ka duwan ah? haa zaro, waxaan isleeyahay waktigii oo allaha madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh waxaaba ka daran oo ka culays badan maantadan. iska dhaaf xamar iyo balcad, iska dhaaf balcade xamar ayaaba amnigeeda cariiri ku jiraa. waayo jidka maantadan hodan qaraxa ka dhacay oo soona k b b maxaan ku rahdaa 24 saac waa un cabsi badan, dadku waa qalqaleen. waxaad moodaa in amniga oo muqdisho iyo soomaaliya oo dhanbo marba marka ka dambeyso uu ciriiri gelaayo, sababtoo ah ciidamadii oo dhan waa wada gaduudsan yihiin. balcad waxaa jooga ciidamo 700 gaarayo oo warshadii balcad hadda degan. kuwii baraawo hadda waxaa laygu leeyahay waa soo baxeen. marka ma aqaano xaaladdu si ay ahaa doonta, laakiin khatarta xamar aaday u badan tahay iyo maxay ahayd goboladaba. waayo nin maanta maka almukarama oo ah halbowlihii iyo calooshii maxaan ku rahdaa madaxtooyada ama soomaaliya meesha looga talinayo ee aad dareemaysiin saacad walba ama wakti walba oo qarax ka dhacayo. ciidamaduna maamul goboleed shaqo kuma laha. waxaa gacanta ku hayo dowladda federaalka ayaa xaq u leh inay maamusho, jihayso cadowga ummadda soomaaliyeed ooga dhexayso. waayahay, doorkii aawe maamulka hirshabeelle iyo la dagaalanka al-shabaab. dabcan deegaanka balcad iyo deegaanada hoos yimaada hirshabeelle ayay ka tirsan yihiin. xildhibaan ayaa tahay, maxaa maamulkiina uga qorshaysan? waa dareemi karaa xaaladda ciidamada weyna jirtaa, laakiin maamul ahaan maxaad qorshaysan? iyo anagu dadaal, hadda guriga madaxweynehan ku suganahay, annagu dadaal waa wadnaa. maamulkan hirshabeelle waa ordon, waa bilow, waa wax walbo imkaaniyaadkii ama facilitigii ma u dhammaanin. ciidamo tababaran oo hadda qaarkii oo ugu horreeyay hadday dib u soo dhamaynayaan, laakiin muhiimaddu waxay ahayd ciidan ba haddii la yidhaahdo waxaan aaminsanahay aniga dowladda federaalka shaqo ku leh. waxyaabo oo aan laga gorgortaminaa jiraan oo sida arrimaha dibadoo kale, maaliyadoo kale, dastuurka federaalka, waxyaabo oo aan maamul goboleedka gaar u lahayn oo aan lagu eedi karinaa jiraan. marka ma qabo in lagu eedo aniga hirshabeelle waa ordon. waa tegi doontaa inaan puntland iyo somaliland ka daba tagno, waa tegi doonaa inaan iska celino, laakiin hadda caqabado dhaqaale xumo, abaaro ba-an, webigiioo gursan, dadkii oo inta badan tuulooyinkii kasoo wada qaxay oo balcad joogo, wallahi culaysyo badanaa isa saaran. marka ma aqaano hirshabeelle, waana iska ordon. kaasi waxa uu ahaa xasan maxamed xaaji ibraahim xasan dheere oo khadka taleefonka ugu waramayey sahre cabdi axmed oo washington joogta. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.